maamulka dawladda hoose ee degmada Garadag ayaa saaka hawlgal aad u ballaaran oo ay ka fuliyeen isma degmadaasi waxa ay xaydaan ugu sameeyeen xaafadda Ceelcadde ee koonfurta galbeed ee degmada Garadag taasoo in badan qatar ugu jirtay dadka ka yimaada dooxyada halkaasi ku soo afyeesha maamulka ayaa waxa si fiican ula shaqeeyay ururka Bayda ee degmada Garadag ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Garadag Mudane Faarax Aadan meel biyo fadhiisteena xilliyada marka loo gudaana biyo aad u fadhiistaan ay ka dhalan karaan cudurrada faafa anagoo taa ka hortagayna iyo dhinaca magaraysa bixi magaalada iyo dhinaca caafimaadka iyo biyihii badnaa ee dhex mari jiray magaalada inay ka yaraadaan baan aad iyo aad ugu rajaynaynaa iyadoo dhanka kalena uu ka hadlay doomiyaha ururka dhalinyarada ee Bayda iyo qaar ka mid ah shacab weynaha xaafadaasi oo iyaguna si diiran u soo dhaweeyay ayuu soo faxanayaa 1 kilometer buu faxanayaa biyaha wadada soo darayaa annaguna urur ahaan doomiyaha la shaqeynaa isaguna nala shaqeeyaa insha Allah waxaan ku joogtaa heer Garadag baa ku direynaa inay nala soo shaqeeyaan hadaan urur nahay ururka Bayda Aadan Ciise aad u wanaagsan maadaama uu sameeyay magaalada Sees halkaas oo ay biyo mari jireen xaafad magaalada Ceelcadde oo ay faraxu ku hayeen togba kala bixeen magaalada dhexdeedii oo ay xaafado badan ka caawin jireen dadkaas markuu ku soo rogmada maayirku moos buga sameeyay si biyo uga leexdaan ay ku direen toga markuu maqashay markaa hawlqabadkiisa aad iyo aad ugu mahadsanyahay annana waa ugu Raxa Cabdi Nuur Honka TV